بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta igu soo booqatay xafiiska maama Khali maamada dhashay walaasheen Ikraam Tahliil Faarax iyo xubno kamida qoyska waxaan marka hore guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan familiga uga tacsiyeynaya dhibtii dhacday oo aan la wada soconno murugada iyo tiiraanyada ummadda Soomaaliyeed ay ku reebatay intaas kadib waxaan rabaa inaan ka cudur daarto marar badan oo xubno ka tirsan qoyska iyo xubno kaloo daneynaya arrimahan maanta iigu yimaadeen igala soo xiriiray ama iigu yimiday oo aan runtii waqti wanaagsan isu weynay ama aan jawaab cad ka siin waayay in muddo ah cudurdaar ayaan ka bixinayaa sababtuna ma ahayn inaanan rabin inaan ka jawaabo ama aanan raalli ka ahayn keliyata waqtiga ayaa ii saamixi waayey maanta ayaan fursad isu helnay aniga iyo qoyskaba inaan arrintan si rasmi uga wada sheekeysano kana doodno qoyska oo ugu horeysa maamadu waxay iga dalbadeen ama ii soo gudbiyeen codsi ku aadan inay sameeyaan banaanbax nabadeed oo ay ku dalbanayaan xuquuqdii ay u raadinayeen ama aan u wada raadinaynay walaasheen Ikraam Tahliil Faarax waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo qoyska iyo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan wasaaradda amnigu ay siinayso codsigaas jawaabtiisii ayna u fasaxayso inay sameeyaan dibadbaxaas ay soo dalbadeen sida ku cad dastuurka dalkeenu leeyahay qodobkiisa 20aad ayaa qeexaya muwaadin kasta ee Soomaali ah inuu xur u yahay xaqna u leeyahay inuu aragtidiisa u soo bandhigo hadday ku soo bandhigo suxura hadday noqon lahayd isu imaatin sida dibadbax nabadeed hadday noqon lahayd inuu si shakhsiya meediyaha u mariyo intaba inagoo tixgelinayna codsigooda dastuuriga ah waxaan u fasaxaynaa oo aan sii doonaa fasax rasmi ah haddii Allah awood ka raali noqdo qoyska oo ugu horeysa maamadu waxaan rabaa laba kelimood hal kelimo inaan ku dhaho ummadda Soomaaliyeed ee doonaysa inay sameeyaan banaanbax ay ugu horeeyaan ehelka hal kelimana waxaan rabaa inaan ku dhaho hay'adaha amniga kelimada koowaad aan ku dhahayo ama aan ka dalbanayo dadka banaanbaxaya waxay tahay waxa aan raadinayno ama la raadinayo waa xuquuq waxaan dalbanaynaa inayan dhicin in xuquuq dadka la leeyahay lagu xadgudbo hadday noqon lahayd danta guud iyo hadday noqon lahayd tan gaarka intaba marka aan leeyahay tan guud waxaan ula jeedaa sax ma ahan in marka qofkiisu dalbanayo oo ku xadgudbo xuquuqda ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo wadooyinka lagu shido lugo in la gubo oo dab la saaro marna sax ma ah waxaan kaloo sax ahayn in gaadiid la jajabiyo in dukaamo la jajabiyo waxaan codsanaynaa inayaan dhicin oo uu noqdo banaanbaxa sida warqadiina codsigeena ku qoran banaanbax nabadeed intaa kadib hay'adaha ammaanka waxaan farayaa inay sugaan amniga muwaadiniintaas sida dastuuriga ah u soo dalbaday inay u sameeyaan banaanbaxaas nabadeed waxaan arkaynaa cid allaale iyo ciddii ka hor timaada ama kaalmeyn weyda ama qashqashta inayan waxba ka duwaneyn cid dhibaatada geysatay waayo waxa ay dalbanayaan waa xuquuqdoodii dastuuriga ahayd ma dhici karto in la qashqasho sida mararka qaar dhici jirtay mana aqbalayno waxaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan u ballan qaadayaa hogaankayga hoostiisa inaan lagu dalbin gaar ahaan hay'adaha hoos yimaada hadday noqon lahaayeen hay'adaha amniga ee wasaaradda amniga hoos yimaada waxaan mar kale ku celinayaa in ehelada iyo dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ay dadaalaan oo ay taxadiraan oo ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara in xuquuq dadka la leeyihiin lagu xadgudbo hay'adaha amnigana waxaan farayaa fariintaas adag waxaana idinku dhiirinayaa idinna ballan qaadayaa inaynan dhici doonin falalkii dhici jiray haddii falal noocaas oo kale ay isku daydana mas'uuliyaddaas annagaa qaadanayna farahana ka laabamayno dabcan hay-adaha ay qusayso ee qeybta nagala ah amnigiina in la sugo waxaan ka yeelan doonaa shir waxaana ku dadaali doonaa in aad hadday noqon laheeday hay-adaha hoos yimaada wasaaradda hadday noqon laheeday maamulka gobolka Banaadir intaba waxaan ka yeelan doonaa arrintiina shir ku saabsan ka wasaaradda amni ahaan waxaan idin ballan qaadaynaa inaan arrintaas si buuxda idinkala shaqeyn doono waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad